أخون وإحنا مو لهينين واني جبسناي ميل وحكي بلا ما هباني وجيفا وعنا وسوق عبس إيو إنترنت كاس بيسون حكى له معنا تسمرانا مخلوني جبه sheekadeena maanta waa sheeko silsilada ah oo na xiriirinaysa warum shakhsi iska caadi ah oona markaas u muuqday mid moral jabsan maadaama uu ku dhacay xanuun u diiday inuu ku socdo lugihiisa waana kadib markii uu ku dhacay imtixaankii alleh oona u muuqday markaasi mid ay kasoo wada xirmeen dhammaan albaabadii rajada balse kusoo bedelay the best Somali youtuber. Halkeena maanta waa sheekooyinka labada youtuber Asad Xaajo iyo Mr Beast sidoo guusha from zero to hero. halkeena waxa uu ku bilaabanayaa Asad Xaajo oo gudaha dalka Malaysia loo keenay xaalad caafimaad waana kadib markii uu kusoo dhaawacmay gudaha dalka Soomaaliya kadib baaritaan dheer Asad waxaa loo sheegay inuusan ku socon karin lugihiisa maadaama uu dhaawac uu kasoo gaaray meel halis ah dhacdadaas kadib Asad waxa uu bilaabmatay nolol cusub wuxuu waa kala dareen markaad shalay ku soconaysay lugahaaga laakiin aadan maanta awoodin midaasi kaliya waxa xaaladaasi dareemi kara qofkii ku dhacday xaaladaasi intaas kadib Asad waxa uu noqday mid moral jabsan sida uu asaga inoo sheegay marka aqoon waxna muu lehaynin waani jabsanaay meel waxa ka bilaabma habaani waa jiifa waa cunaa wasuuq cabis iyo internetkaas bisuun xaka leh macna tismuraana maqdooni jabe balse noloshaasi niyad jabka ay kuma uusan sugnaanin waxa uu Allah subhanahu wa ta'ala uu furay mid ka mid ah albaabada guusha laga galo sanadii 2019 ayuu Asad waxa uu go'aansaday inuu ku soo biiro social media gaar ahaan YouTube-ka maadaama shaqada social media ay ka dhib yar tahay marka loo eego kuwa kale waxaan wax walba aad qabsan kartaa adigoo jooga gurigaaga maadaama ay wax walba ay fududeysay tiknoolajiyada intaas kadib Asad waxa uu bilaabay inuu dadka ula wadaago muuqaalo joogto ah oo ayna ka helayaan shacbiyadiisa taasi oo u suurtagelisay inuu si joogteeyo muuqaalada waana kadib markii uu dhiirigelin uu ka helay dadkiisa dad badan waxay dhaheen Asad YouTube furo meen kista waa ka dhacay adoo ku soo guurida waxauna la yimaaday shaqo adag oo naga duwanaysay kuwa kale oo ay isku shaqada yihiin waana inuu asaga si maalinlaha ugu soo gudbin jiray muuqaalo taasi oo u baahan dadaal iyo dulqaad uusan samayn karin qof waliba kadib dadaal dheer oo hadda lagu joogo maalinka uu ku soo biiray YouTube-ka 5 sano ayuu waxa uu ku helay shacbiyad dhan 2 milyan oo subscribers ah asagoo kanaalkiisa uu ku soo baahiyay muuqaalo gaaraya 1400 oo muuqaal haddaba ma ahan tiradaas tiro yar ahaantii waxay u baahan tahay hal adag iyo joogteen asagoo muuqaaladaas ku helay in ka badan 364 milyan oo daawasho ah marka aynu eegno dhaqaalahan arada uu sameyn karo daawashadaasi waa ku dhawaad 44,000 ilaa 710,000 oo dollar waa natiijada uu filanayo qof waliba oo dadaala oo naadkiisa u mara meel waliba oo wanaagsan si uu gaaro yoolkiisa sunnada Allah subhanahu wa ta'ala waxa kamid ah inuu imtixaano adoonkiisa si uu badbaadiyo dhibaato ku soo socotay markaasi ama si uu xanuunkaas u bedelo waxa uu jecel yahay marka waa la yaabaa inuu ka soo daawo farajka ama busha recreated every single set from Squid Game in real life. magaciisu waa Jamie Donaldson oo loo garab u yahay Mr Beast oo ku soo biiray YouTube-ka 2012 asagoo waliba 13 jir ah waxaana YouTube-ka uu soo galay magac Mr Beast 6000 waxaana bilaabay inuu sameeyo muuqaalo qiimam ah balse nasiib darro kuma shaqayn fikradaasi haddana waxa uu bilaabay inuu la yimaado fikradda xilligaas caanka ee YouTube-ka dhexdiisa oo nahayd inaad qofka aad subscribe u saarto asagana uu ku saaro waana sidii hadda caanka ah aalada TikTok oo kale balse sidoo kale ayadana uma shaqayn taasi waxaana sidaas ku jiray sanado badan waliba asagoo kanaalkiisa uusan dhaafinin 300 oo subscribers ah waxaana markaani Mr Beast uu go'aansaday inuu ka tago waxbarashada si uu xog u saaro YouTube-ka taasi oo keentay in Mr Beast iyo waalidkiisa ay isku dhacaan waxaana Mr Beast waalidkiisu u sheegay inuu ka shaqeeyo shaqo uusan jecleen
uu ka doorbiday noqoshada youtuber faqiir ah. Waxuuna Mr Beast uu kasoo guuray guriga uu la deganaa waalidkiisa, waxauna sanado badan uu ka howlanaa barashada sida uu u shaqeeyo algorithm-ka YouTube. waana mid aysan maanta ayna fahansanin in badan oo ka mid ah dadka, waana inaad marka hore aad ogaataa waxaad ka shaqo geli rabtid sida uu u shaqeeyo, sidoo kale waxyaabaha lagaaga baahan yahay si aad u gaarto meesha aad rabto. aan u soo laaban sheekadeena. intaas kadib Mr Beast waxa uu bilaabay sidii uu uga mir dhalin lahaa hadafkiisa, wuxuuna la yimaaday fikrado cusub oo horey looga aqoonay xilligaas YouTube-ka, waana midda maanta u suurtagelisay inuu gaaro halkaasi. waxaa jirta oo rax xoojinaysa hadalkan, taasoo tiraahda haddii aad rabto inaad ka duwanaado video kugu hareeraysan, waa inaad la imaataa wax cusub ayna ayaga samayn karin. wuxuuna la yimaaday jaalanjiyo adag oo cajiib ah, sida inuu tiriyo 1 ilaa 100,000, waxayna ku qaadatay jaalanjigaasi 48 saacadood, kaasi oo ilaa hadda ka mid ah muuqaalada ugu daawashada badan ee lagu soo baahiyey barta YouTube-ka. sidoo kale waxa uu soo saaray ciyaarta caanka ah ee loo yaqaano Squid Game, iyo inuu sameeyo tabarucaadyo fara badan, iyo sidoo kale inuu beeray 20 milyan oo geed. sidoo kale tan ugu cajiibsan oo ah inuu hal mar u iibsaday jasiirad dhan asagoo ku qabanayo challenge si uu u siiyo guuleystaa. waxuuna wax ka yar 5 sano uu ku helay wax ka badan 100 milyan subscribe ah, taasi oo u suurtagelisay inuu ka mid noqdo top 10 YouTubers. hadda waxa uu haystaa wax ka badan 260 milyan oo subscribe ah, wuxuuna kanaalkiisa ugu soo baahiyey muuqaalo gaaraya 749 muuqaal, wuxuuna muuqaaladaas uu ku helay daawasho ah 50 bilyan oo daawasho ah. wuxuuna sanadkii daawashadaasi tirada badan uu ka samayn karaa lacag ku dhow 6 milyan ilaa 96 milyan oo dollar. ogowsha guulahaasi waxaa ku horeeyey maalmo badan oo jab ah, halka aad rabto inaad gaarto waxay ka xigaan ama ay ku jiraan marka aad samayso waxaad ka baqanayso. YouTube-ka waxaa sanad kasta ku soo biiraa video kala duwan, balse waxaa la isdheeryahay dadaalka uu la yimaado qof waliba. wali waa ay adag tahay inuu qofka si degdeg ah oo halkaas ugu sameeyo magac iyo hanti. Mr Beast oo inoo sheegaya sheekadiisa waxa uu yidhi inaan gaaro 1000 subscribers ah waxay ugu qaadatay muddo sanad ah. sidoo kale waxa uu yidhi inaan ka shaqeeyo shaqo aan jecleen, waxaa doorbiday inaan noqdo YouTuber faqiir ah, balse sanado kadib wuu la yimid dadaal iyo inuu si joogto ah u soo geliyo kanaalkiisa muuqaalo tayo leh oo ayna ka helayaan dadkiisa, ayaa waxay maanta u suurtagelisay inuu gaaro heerkani. waana natiijada uu filanayo qof waliba oo dadaala oo hal adeega una mara hadafkiisana meel kasta oo suuban si uu u gaaro yoolkiisa. maanta haddii aad adigu tahay daawada YouTuber cusub ama mid hore ugu niyajabay YouTube-ka duruufo jiro awgeeda, inaad maanta noqoto YouTuber caan oo halkaas ka sameeyo dhaqaale fara badan, ma baahnid inaad hayso dhammaan qalabyada uu kaaga baahan yahay YouTube-ka si aad u gaarto heerka aad rabto. oo keliya waxaa u baahan tahay inaad haysato moobilkaaga gacanta, adna taqaano video editing iyo xirfadaha kale uu kaaga baahan yahay YouTube-ka, adigoo weliba xirfadahaasi ku baran kara moobilkaaga gacanta. waxa uu baalo aan ku hubaa daawade haddii aad joogtayso inaad soo gudbiso muuqaalo tayo leh oo ayna ka helayaan video ku xiran kanaalkaaga, inaad YouTube-ka aad gaari doontid heer aad u fiican oo keliya adigoo la imaaw dadaal iyo dulqaad.